السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحلقة دي شناد اتحانيه الني سومالي دوين مغالكنا إن شاء الله وحينكو إيجينا بوابيست قميستياشا دولك الصومالي دا سنة كي كستيد بقول سقاشنكي أيو مالقلي إيطاليانو قويني حباشيدو كقايب قلان شركة بروزريس جنرال أكت oo loogu arrinsanayay arrimaha ganacsiga addoomaha iyo hanashada Afrika ka qaybgalkaasina waxa uu xabashida siiyay aqoonsi ah dawlad Kiristana oo xaq u leh in ay hub soo dejisato iyada oo aan lagu faragashanayn waxaana loo aqoonsaday mid ka mid ah awoodihii gumaysiga maadaama loo aqoonsanaa oo ay haysatay Itoobiya awoodda ay kaga qayb gashay kulanka gumaystayaashii labadii qarni ee 18aad iyo 19aad ku doobiyay qaaradda Afrika waxa xabashida u soo degay oo ay heshay hub aan yarayn gaar ahaan markii uu labada goobood ku jabiyay boqor Yuuxana Masaarida Yuuxanahaas laftiisana ay shirqooleen ee dileen ciidankii khaliifada Cabdillaahi at-Taayushi sanadkii 1889kii arrinkii xabashida iyo taliskoodiina uu ku kaliyeystay boqor Menelikh waxa iyaguna lugaha ku fidiyay koonfurta Soomaaliya Talyaaniga kadib markii ay shirkadii bariga Afrika ee Ingiriisku uga tanaasushay aagga koonfurta Banaadir waxaana uu qodobkaasi sanka kaga tolay Suudaankii Sinjibaar in uu ka tanaasulo taliskiisii ka oognaa dekedaha xeebaha Soomaaliyeed 1829kii waxay sidoo kale Talyaanigu isku baahiyeen Eritrea oo dhan taasina waxa ay cabsi gelisay boqor Menelikh xabashida iyo kacdoon wadayaashii Talyaaniga ahaa waxa uu go'aansaday inuu qabsado dhulka Tigrayga ee waqooyiga Itoobiya oo dhan waxaana ay gacanta ku dhigeen Cadwa oo ahayd magaalo madaxdii Menelikhna waxa uu buriyay ballankii iyo heshiiskii Oksiyaali 11 Maarch 1893kii maadaama ay Talyaanigu ka soo tallaabeen xuduudihii iyaga iyo xabashida kala hor joogay bishii Maarch sanadkii 1896kii ayay ka dhaxoogsatay Talyaaniga iyo xabashida goob bur iyo biyo loogu kala miirmay waxaana uu dagaalkaasi ka dhacay Cadwa waxaana halkaas afka ciidda loogu daray colkii Talyaaniga xabashigiina labintii ayuu hantay Talyaanina waxa tuurta loo saaray qarashkii dagaalka iyo kafaare gudba dhammaan dhulkii ay ka qabsadeen deegaanka Tigreegana waxa sanka lagaga tolay inay xabashida dib ugu celiyaan oo uga baxaan jabkaas uu boqor Menelikh u geystay Talyaaniga 1896kii waxa uu kor u qaaday haybadiisii Ingiriiskuna waxa uu bilaabay inuu ula dhaqmo sidii nin u dhigmo oo la arrin iyo awood ah ujeedkiisuna waxa uu ahaa in uu isku hubsado danaha uu ka leeyahay dhulka Soomaaliyeed ee uu haysto iyo in uu sii xijisto inta uu uga baahan yahay quudka iyo qalaabka ciidankiisa ee uu ka qabeelayo geeyiga Soomaalida qiimaha uu ku raali gelinayo xabashiga si aan uu faragashan geeyiga Soomaaliyeed ee uu Ingiriisku ka danaysanayana waxa uu noqday kii sababay heshiiskii ay xabashiga iyo Ingiriisku wada galeen 14 May 1897kii waana heshiiska noqday qaydistii koobaad ee lagu kala qoqobay geeyigii ay ka tageen saldanadihii Islaamiga ahaa qiimaha uu ku raali gelinayo xabashiga si aan uu soo faragashan geeyiga Soomaaliyeed ee uu Ingiriisku ka danaysanayana waxa uu noqday kii sababay heshiiska ay xabashiga iyo Ingiriisku wada galeen 14 May 1897kii waana heshiiska noqday qaydista koobaad ee lagu kala qoqobay geeyiga ay ka tageen saldanadihii Islaamiga ahaa waxaana uu heshiiskaas Ingiriis ugaga tanaasulay oo ugu gacan geliyay Itoobiya dhulweynaha Soomaaliyeed ee Herar Jigjiga Hawd iyo Gildasa inkasta oo heshiisku uu dhacay xilliga haddana dhulka lama qaydin oo lama calaamadin xadka ilaa laga soo gaarayay 1934kii sanadkii 1897kii waxa uu ahaa sanad kala jiheeyay Soomaalida iyo xabashida inkasta oo aan weli la helin jawaabta weydiintii la damacsanaa in lagu xalliyo heshiiskaas 1897kii ee ahayd yaa dhaxlay saldanadihii Islaamiga ahaa ee taxnaa deegaanka xeebta ilaa deegaanka Shaawa Soomaalida mise xabashida si lama huraan miyay tahay in ay isku aadaan ama iswaafaqaan xuduudaha siyaasadeed iyo xuduudaha aqooneed marka loo eego dhanka Soomaalida sanadkaas 1897kii waxa uu ahaa sanadkii khiyaamada oo daalin ah Ingiriis ayaa siiyay dhul aanu lahayn dulli dadqaada oo ah xabashi oo aan mutaysan waxaana uu siiyay deegaan dhan oo dadkiisii iyo dunyadiisiiba dhex joogaan iyo magaalooyin camiran oo u shacirka loo tuuraa haddaba aynu isla eegno qaabkii ay u waajaheen muslimiintu dalacsigii gumaysiga iyo dumintii Herar
ka falcelinta ay muslimiintu ugu gaashaanteen xadgudubkii tardhaafka ahaa ee gumaystayaasha iyo kiristanka ee heerkiisii ugu sarreeyey gaadhay maalinkii ay hereer duuntay waxa uu dhaliyey jihaadkii uu oogay ee dabkiisa shiday sayid maxamed cabdalla xasan ee hurayey muddada 20 sano ah laga soo bilaabo 1899 ilaa 1920 sharaaradda iyo dhambiisha jihaadkaasina waxa uu si dhab ah u oogsaday 1913 oo sayid maxamed cabdalla xasan heshiis la galay boqorkii islaamay ee inta uu furay xaaskiisii kiristanka ahayd guursaday labada xaas ee islaamka ah ee canfarta iyo oramada kale ahaa ee liij iyaasu oo ahaa boqor xabashi ahaa oo dhaxlay minilakh se islaamay oo ka baxay kiristanka xilkana aan ku raagin ee markiiba laga xayuubiyey oo u firdhaday dhanka danaakiisha ama canfarta kiristaamayntii ay hoosta ka wadeen gumaystayaashu ee ingiriisku uu horboodayey waxyaabihii ugu badnaa ee ay dhalisay waxaa ka mid ahaa oogsigii jihaadkii sayid maxamed cabdalle xasan taarikhyahanka reer ingiriis ee thomas arnold oo ka faalloonaya arrimahaasina waxa uu soo tabiyey awoodda minilakh ee isa soo taraysa iyo qabsashada herer waxa ay sababeen in tiro yar oo bulshadii deegaanka ahi ay kiristaamoobaan masaajidkii weynaa ee hererna waxa uu ka dhigay kiniisad xilliga uu minilakh sidaas samaynayaana waxa uu la xilli ahaa waayihii uu faransiisku kiniisadda kaatooliga ka dhisay berbera weliba meel ka agdhow masjidkii uu sayid maxamed cabdalle xasan ardaydiisa aqoonta diiniga ah ku bari jiray hurimaha kiristanka kaatooliga ahina waxa ay soo gaadheen geyiga soomaaliyeed 1881 deegaanka jabuutina waxaa galay hurin kale oo diinfaafiyayaal kaatoolik ah kadib markii ay faransiisku sida rasmiga gacanta ugu dhigeen sanadkii 1883 sidoo kalena waxaa koonfurta soomaaliyeed ku soo degay diinfaafiyayaal kiristan ah oo ah madhabta luusiran ama protestant loo yaqaano sanadkii 1898 sidaa awgeed la yaab ma ay lahayn xilligaas in uu ku faafay deegaanada soomaaliyeed warka soo gelitaanka geyiga soomaaliyeed saanacad kiristana oo diin faafinaya oo waa bulsho muslima oo reer guuraa ah warkana isgaadhsiin og oo muddo yar uu daafaha uga kala baxayo sidoo kale dumitaankii herer iyo firdhadkii ay amiirkeedii iyo xertii ku gadaanayd kaga baxeen ee ay ku galeen deegaanka soomaalida ee ogaadeeni waxa ay geliyeen bulshaweynta soomaaliyeed xamaasad gaar ahaan qaybihii aaminsanaa mabda'a sheekh axmed ibnu idriis baaqii sayid maxamed cabdalle xasan ee jihaad ooga ahaana waxa uu la kulmay soo dhoweyn baaxad leh oo waxa uu dadka ku dhiirigelinayay gaalada saanacadka ee dhulkii kusoo qulqulaysa iyo dhismaha kiniisadaha goonyaha dalkooda laga binaynayo iyo in deegaanka soomaaliyeed laga dhigtay goob la isaga gooshsiiyo gurmadka gaalada ee ku waajahan walaalahooda muslimiinta ah ee suudaan ee waday kacdoonkii mahdiyada iyo sidoo kale in la nabaad guurinayo dhulkii soomaaliyeed oo daaqa iyo dhirta lagala dagaalamayo waxa halkaasna aynu ka dhaadaynaa in arrimaha daaranaa deegaanka iyo daaqa dhulka ay bulshada soomaaliyeed goor horeba dhaadeen in uu gumaysigu dhankaas kala dagaalamayo waxa uu sayid maxamed cabdalle xasan ka bilaabay jihaadkiisa qaybta muslimiinta ee Itoobiyada maanta oo muslimiinta deegaanadaasi waxa ay ku noolaayeen ciriirtoon iyo ciil ay badeen gaalada hubeysan ee marba inta ay ku soo duulaan boobaya ee sida ay sharafta iyo karaamada muslimiinta herer iyo deegaanka ku xeeran ugu tumanayeen shuftooyinka xabashida ee hubeysan ee aan waxna xeerinayni sayidkuna halkaas ayuu kaga dhawaaqay jihaadkiisii waxana uu dhoolatus hubeysan ku maray bishii Maarch 1900 isaga oo ka dhawaajiyay inuu weerar gelin doono xabashiga gaalka ah iyo ingiriiska dabada ka soo riixaya waxa uu sayidku duulaanka ku bilaabay jigjiga oo ahayd xarunta ugu weyn ee ay xabashidu ku leedahay jiidda ogaadeeniya waxana uu taxane dagaalo ah oo istaba jooga kula galay xabashida jiidda walwaal waxana ay xabashidu goobahaas ku waayeen 1200 oo dagaalyahan bishii Janaayo 1901 ayay xabashidu u diyaariyeen ciidan 10,000 ah dabagalka iyo gacan ku dhigista sayidka balse waxa ay arkeen in haddii ay sidaas ugu galeen sayidka aanay nolol kaga soo noqonayn waxana ay sanka kaga tolaadeen inay u kaashadaan ingiriis iyo talyaani ayna dagaal wada jir ah oo isgaashaan buureysi ah ku qaadaan sayidka balse tiradii jababkii hore ayuunbay tiro kale ku sii biiriyeen miisaaniyaddii wasaaradda difaaca ee ingiriiska ee sanadkii 1899 ahayd 23 milyan ee giniga Australianiga ahina waxa ay sanadkii 1904 gaadhay 73 milyan oo giniga Australianiga ah yacni 50 milyan ayay kor u kacday ingiriis iyo talyaanina waxay sanduulle ku noqotay in ay dib u gurasho sameeyaan oo sayidka gacan qaad nabadeed la yeeshaan bishii Maarch 1905 haddana
dagaaladii mar kale ayay dib u cusboonaadeen sanadkii 1909kii. Ingiriiskina waxa uu dhaaday in aanu Soomaalida iyo sayidkooda dagaal fool ka foola kaga lib qaadayn, waxana uu janjeersaday inuu adeegsado dagaal nafsadeed, waxana uu ku cadaadiyey amiirkii ama shariifkii Maka ka tirinayay in uu diro 7 sheekh oo masaajidada Muqdisho dadka uga sheegaya in uu isagu beri ka yahay jihaadka Sayid Maxamed Cabdulle Xasan uu wado, warqad uu saxeexayna uu ku qoro arrinkaas. Ingiriiskuna waxa uu si waafi ah warqadaas u gaarsiiyey deegaanada Soomaaliyeed, dadkiina waxa uu muujiyey in Sayid Maxamed Saalax uu ka beri yahay jihaadka iyo dacwadda Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. waxaana warqadda ku qornayd oo uu amiirka Maki ku soo xardhay laga bilaabo iminka ma doonayo inuu xidhiidh aniga iyo adiga inaga dhaxeeyo, adigu waxa aad isku magacowday sayid, mana garanayo meesha aad kala timi naanaysta iyo sidoo kale meesha ay kaaga timi mahdinimada aad sheegatay. intaas ayaa ku qornayd warqadda, kuna darso oo Sayid Maxamed Cabdulle Xasan laguma hayo sooyaalka abidkii meel uu ku sheegtay mahdinimo. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan waxa uu ahaa sidii mililakhi ay isku xilliga ahaayeen, nin yaqaana jawiyada loolanada, gidgadoonka waayaha iyo siyaasadaha dowladeedba, kana dheragsan hanaanka iyo habsocodka siyaasadda adduunka. waxaana uu ka faa'iideystay oo fursad ka dhex samaystay oogsigii dagaalkii koobaad ee dunida. waxa uu la xidhiidhay khilaafadii Cusmaaniyadda, hogaamiyihii Turkiga ahaa ee joogay jasiiradda Carbeedna waxa uu u soo diray sayidka gurmud uu ku kaalmaynayo oo uu ugu qirayo inuu yahay amiirka qabiilada Soomaalida. waxa uu sidoo kale gaashaan buuristay Jarmalka, waxaana uu kaalmaystay haraagii ciidankii mujaahidiinta muslimiinta ahaa ee Mahdiga Suudaan. sidoo kalena waxa uu isbahaysi la sameeyey boqorkii Xabashida ee islaamay ee Liij Iyaasu oo xilka Xabashida qabtay Minilakh dabadii 1913kii, caasimadiisiina ka soo raray Addis Ababa oo ka dhigay Herar, nasabkiisii Xabashiga ahaa ee Nebi Suleymaan ku arooriyeyna bedelay oo samaystay nasab haashimi ah, calankiisina ka tiray oo ka baabi'iyey macatabkii dhexda kaga sawirnaa oo ku sawiray bishii islaamka iyo ereygii tawxiidka ee laa ilaaha ila allah. waxa uu Sayid Maxamed Cabdulle Xasan kula kulmay boqorkaas Xabashida ee muslimka ahaa Jigjiga, waxaana uu maagnaa sayidku inuu u guuriyo inantiisa, balse uma ay kaadin kiristankii Tigrayga ahaa oo uu hogaaminayo Hayle Salaase ee markiiba kacdoon ayay ku oogeen. boqorkii yaraa ee muslimka ahaana wuu jabay, waxaana uu firdhaday dhanka Danaakiisha ama Canfarta. goobtii dagaalkana waxa ku kaliyoobay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. markii uu dhamaaday dagaalkii koobaad waxa uu Ingiriiskii cudud iyo ciidan wixii uu hayeyba dul dhigay sayidka, isaga ayuuna u soo wada jeestay. dagaallo tiro beelayna way dhex mareen ilaa intii uu sayidku ka dhimanayay 23kii February 1920kii, waxaana dilay sayidka hargab. waxa uu ku guuleystay Sayid Maxamed mideynta qaybo badan oo ka mid ah ummadda Islaamka, sidaa awgeedna waxaa loo aqoonsan yahay aasaasihii kicitaanka iyo heeriyo iska tuurka qowmiyadda Soomaaliyeed. sidoo kalena tiro badan oo ka mid ah qabiilada Soomaaliyeed ayuu ahaa shiikhooda, aanay kaga daba dhufan oo uu dhan diimeed iyo dhan duunyaba u hogaaminayay, qabiilana wuu heshiisiiyey. waxqabadyada waaweyn ee sayidkana waxaa ka mid ah 1 inuu boorka ka tumay diintii isaga oo raacaya jidkii Sheekh Axmed ibnu Idriis oo ah dariiqada saalixiyada, shareecadana uu dadka jid iyo jiiraalba uga dhigay, bulshada Soomaaliyeed dhexdeedana uu ka wiiqay oo nacsiiyey aqoonta liidata ee reer galbeedka ee diin la'aanta ku salaysan. 2 inuu mideeyey muslimiintii deganeed aagagii Soomaaliyeed ee saldanadihii Islaamka ahaa ka talinayeen waayihii idlaaday iyo sidoo kale qaybta muslimka ee Itoobiya. 3 la dagaalanka gumaystayaasha iyo adeegsiga jid kasta oo uu ku caabiyey rabitaankooda siyaasad ahaan iyo ciidan ahaanba. 4 waxa uu ka horjoogsaday ummadda Soomaaliyeed dhaqdhaqaaqii lagu reer galbeedeynayay iyo aqoontii ajaanibka. waxa uu dareensiiyey ummadda ballaadhan ee Soomaaliyeed in ay ka wada jiraan laabta oo ay dhaadanaadaan muslimnimadooda iyo inay iyagu walaalo yihiin, waxaana uu qodobkaas ku meelmariyey gabayadiisii iyo tijaabooyinkiisii. 6 waxa uu si rasmi ah u jideeyey ku dhaqanka shareecada, waxa uu mamnuucay isku milanka ragga iyo haweenka, xijaabkana wuu waajibiyey. 7 waxa uu dumarka u kaashaday dagaalada, dagaalyahanado geesiyado ah oo soo majeesatooyin ah oo Soomaaliyeedna way ka soo mureen ciidankii daraawiishta. 8 kuma uu magacaabi jirin ciidankiisa Soomaali ee waxa uu bixiyey daraawiish oo ah muslimka taladiisa u gacan geliya sheekha dariiqadiisa ee badanka isaga daba fadhiista. arrimaha ay ku kala gedisan yihiin Imaam Axmed Maxamed Al-Mahdi iyo sayidkuna waxa ka mid ah magacan oo Mahdigu uu mamnuucay inay colkiisu magacan adeegsadaan oo agtooda magacaasi kama uu ammaanayn,
sayidkuna magacan ayuu adeegsan jiray oo magaca Soomaaliba waxa uu codkiisa soo galay waayihii uu taliyihii Cusmaaniga ahaa ee Maxamed Rasha oo ansixiyay amiirka Soomaaliyeed sanadkii 1917 markaas uu sayidku u diray dhambaal uu bilow uga dhigay ka socota Sayid Maxamed Cabdilaahi amiirka qabiilada Soomaaliyeed ee Afrikada Soomaaliyeed galbeedkeeda iyo waqooyigeedaba 9 waxa uu ka soo horjeestay oo la dagaalamay habdhaqanadii bulshada ee dhibta lahaa sida cunista qaadka, cabista sigaarka iyo ku tagrifalka hantida lagu loofarayo. dhaqdhaqaaqa sayidku waxa uu ahaa mid la mid ah dhaqdhaqaaqyada diineed waxaana uu ku baaqayay in wax la wanaajiyo diintana boodhka laga tumo oo dib loo cusboonaysiiyo uhiiliyayaal iyo kahiiliyayaalna wuu lahaa qaybo badan oo bulshada Soomaaliyeed ahina way ku mucaaraday dacwadiisa waxaana uu arkayay fitno gondihiisa ka dhalatay mucaaradnimadaasna waxa ka dambeeyay arrimo madhabeed iyo dano qabiileed gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniguna halkaas ayay fursad ka dhex raadsadeen oo dabinkoodii la hoos ordeen waxaana ka dhashay dhaqdhaqaaqyadaas inay qabiilka Isaaq u bahaystaan Ingiriiska la dagaalanka sayidka iyo daraawiishtiisa taasina waxa ay ku guushay sayidku inuu dhaliilo qabiilkaas oo ku yiraahdo Isaaqu weligoodba dameero damiir laawayaala ayay ahaanayaan waxa uu sidoo kale ku guuleystay Ingiriisku inuu qabiilo kale ku kiciyo sayidka oo majeertaankii koonfureed oo uu hogaaminayo Baaquur Cismaan ayuu ku guulay sidoo kalena waxa uu ka faa'iideystay Ingiriiskii xamaasadii dhex mushaaxday wadaadadii Suufiyada waxaana halkaas ku bariiqday oo dhantaalmay higsigii uu sayidku ka lahaa mideynta aragtida iyo madhabka diimeed ee Soomaalida aakhirkiina waxa ay dani baday inuu dagaal rasmi ah la galo wadaadadii dariiqada qaadiriyada waxaana ku baxay gacanta daraawiishta Sheekh Aweys Al-Qaadiri sanadkii 1909 ilaa haddana deegaankii uu ka dhintay ee lagu aasay waa goob lagu siyaarto sheekhaas ayna ku siyaartaan qaadiriyiinta oo ah dariiqada ugu weyn Soomaaliya arrimahaas oo dhan marka la isku soo xooriyana waxaynu ka soo dhiirinaynaa alkunka iyo aasaaska qaab fikirka Soomaalida waayahan iyo sidii ay fikradaha ay hadda haystaan u aamineen inahaas ayaynu ku soo koobaynaa muuqaalkeenna wassalaamu calaykum